waxaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho laga soo dejiyay meydka marxuun Cali Mahdi Maxamed Allah u naxariisto oo ahaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo salaada janaasada lagu dukaday barxadda garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaana ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka mudane Maxamed Xuseen Roble gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dowladda Soomaaliya madaxweynayaashii hore ee dalka iyo dadweynaha u tiro badan salaada janaasada kadib ayaa meydka marxuun Cali Mahdi waxaa lagu aasay masjidka Cali Mahdi oo ku yaala xaafadda Tawfiiq ee degmada Yakshiid iyadoo ay ka soo qayb galeen aaskiisa dadweynaha u tiro badan iyo ehelka marxuumka kuwaas oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee magaalada Muqdisho inta kadib ayaa waxaa warbaahinta goobta kula hadlay wasiirka wasaaradda amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee dalka Allah u naxariisto marxuun Cali Mahdi Maxamed guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan si gaar ah ayaan ugu mahadcelinaa dadka Muqdisho jooga oo runtii dulqaad muujiyay maanta oo jimco ahayd oo jidad badan la xiray inay dulqaad weyn muujiyaan aadan ugu mahadcelinaynaa ayagana ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto waxaan uga mahadcelinaynaa istixqaamka iyo dulqaadka waxaana Ilaahay uga barinaynaa subxaanahu wa ta'aala marxuumka inuu naxariisto in loo soo wada duceeyo meel walba la joogo in loo soo duceeyo ugu dambeyntii hawshan oo runtii si wanaagsan noogu soo gabagabowday inta aan sheegay iyo inta aanan sheegin guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin wixii dheeraadana gudoomiyaha gobolka ayaan noo sheegi doona haddii Ilaahay yiraahdo aad u mahadsantihiin warbaahinta si gaar ah warbaahinta ayaan u ammaanaa runtii oo u soo taagneed hadday tahay mid toos ah hadday tahay mid muuqaal ah hadday tahay qoraal oo kaalin muglika uga qayb qaatay arrintan aadan uga mahadcelinaa dulqaadka ay muujiyeen iyo firfircoonaantaba gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa u mahadceliyay cid kasta oo door ka qaadatay aaska qaran ee loo sameeyay Allah u naxariisto marxuun Cali Mahdi Maxamed oo ahaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya isku dubaridka iyo qaabaynta hawshan aaska ah dhammaan mas'uuliyiintii hawshan isu xilqaantay nagala qayb qaadatay ka qaybgalka munaasabadda aaska iyo janaasadaba علماء الدين الصوماليات ماديها أي أمنية دمتي السلام عليكم ورحمة الله السلام كديب إلهي سبحانه وتعالى أيام مهضلة مهضة الله كديب وعنو مهد علينا إنا مسؤوليتي وصوح القانتي هوشان دمان توت هدي الله ينقوع الكهاي يقوهر انتبا بلشدة الصوماليات اسو تاكتي جنازة إلى هدنا تاغانا يان أيغانا أقوم مهد علينا mahadnaqa kadib Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto samriga iimaanna ha ka siiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka baxay mudanayaal waa Ilaahay mahadiis si wanaagsan ayay noogu suura gashay dadaal badan oo la sameeyay kadib in laga soo qaado meydka magaalada Nairobi ee dalka Kenya la keeno dalkiisii lagu tukado mas'uuliyiintu ay kula dukadaan garoonka diyaaraduhu ay aga dhigtaan kadibna la keeno goobtii lagu aasi lahaa oo ah masaajidkii oo asaga dhisay qayb ka mid ah Ilaahay baa mahad leh mahadnaqa alle kadib waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay howlahaas oo nagala shaqaynaysay marraba inaan warka idinku sii badiyo aan u ducayno marxuumka janaasadana meel walba oo dalka Soomaaliyeed masaajid ku yaal ama culimo ay joogto inay u tukadaan oo ay u duceeyaan ayaan ka codsanaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan ka soo qaybgalayaashiina wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu